Arnold Toynbee waa qarnigii 20aad baan odhan karaa taariikhyahankii ugu weynaa ee reer galbeed lahaayeen waa ninkan leh taariikh alxadaaraat ilaa 27 xadaaro oo bini aadamka soo maray buu taariikhdooda u qoray على كل حال ومستشرقين توقوا وين بوها توينبي أي وحوليه هي كو الربين يدرسان تاريخ ذي النبي محمد أهل سامبولي تاريخ ذي النبي محمد كتب نبه أهل سامبولي وأيضا ولقين كهلي كرين نبي كلا تاريخ ذا كم إذا أنت على هياني تشرين إنني أدعو العالم بمركالي دوني ذا وحنا ويريا إن مبدأه ولا النمضة iyo sinaanta laga qaata buu leeyahay islaamka ayaan dunida ugu yeedhaya waayo buu leeyahay caqiidatu tawxiid caqiidada ilaaha kaliga sheegaysa ee uu islaamku la yimi waa arwac al-amthila ala fikra tawxiid al-aalam wa tusaalaha ugu fiican ee bini aadam dunida ku nool lagu midayn kara buu tilmaamaya wa inna fi biqaa'i al-islam amalan lil-aalam kulli waarida uu islaamku waaraana rajay u tahay buu leeyahay dunidoo dhan maanta iclaamka buuqa wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida saxiixa ma aqoonyahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini aadamnimada